Somaliland qadiyadeeda waa qadiyad Soomaaliyeed xalkeedana Soomaaliya yaala diplomatic pressure lagu abuuro Somaliland waa diblomaasiyadda iyo sharciyadda caalamiga aan haysanaan aan ku gacan maroojinayna la yiraan nooma keenayso Somaliland way sii fogeynay maxaqaa'iqa adduunyada ka jira waaqaca tilmaamayo xooga diblomaasiyadda dal isdiidan haduu miday karo Taiwan iyo China miday lahay China ma xoog ku yaryahay veto power le adduunyada joogto jasiiradda yarto Taiwan waa diblomaasiyad barashar waa ku keeni weys United Nations ka soo raacday inta ka barashar garay dalkii cilaaqaadka ka goosada dhaqaalan ku siinaay wax kastay ku sameeyeen Taiwan waa jirtaa waa joogtaa Somaliland hal siyaasadeed oo aqal ku salaysan oo Soomaaliyeed annagay naga rabtaa inaan Kenya cilaaqaadka u goyno iyo inaan jeclaano Somaliland noogu imaamayso noogana fogaamayso hadba intaan juhdi iyo dadaal gelino qadiyadda Somaliland ayay noo jirtaa marka meelaha laga doonayo oo laga raadinayo qadiyadda Somaliland ma jirto qadiyadda Somaliland Soomaaliya iyo Somaliland ay ka dhaxaysa ayaga laga rabaa in geedhiiranaan waa inaan yeelano aan ku wajahno dadka Soomaaliyeed ee waqooyiga Soomaaliya degan aan ku dhiirano aan ku wajahno duruufooda iyo waxay tabanayaan aan ku aqbalno oo aan ku soo xirigelino annaga mas'ala annaga noo taal iyo ducfi annaga aan leenahay waaye horena waa u soo laheen maantana waa ka sii daro haynaa ka soo raayo hayn Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh magacayga adna leedahay waxaan ku noolahay Sweden Transfer Galaxy waxay iga caawisay inay si kan xidho xiriir fiican aniga asxaabtay iyo waalidkayga Transfer Galaxy waxaan u doortay sida uu sahlan yahay iyo sida uu dhaqso badan yahay